waa kuma waddanka xiga ee ku biiri kara midowga Yurub. Muddo 10 sano ayaa laga joogaa markii waddankii ugu dambeeyay uu ku biiro midowga Yurub, waana dalka Croatia oo ah dalka ugu dambeeyay ee ku biira midowga Yurub. Sida aragtiin, wadamada badanaa qaaradda Yurub waxay ku jiraan midowga Yurub marka laga reebo UK, Switzerland iyo wadamada isku yiraahdo Balkan. UK ayada ayaa iskaga baxday midowga Yurub, balse Switzerland waxay qadatay nidaam dhexdhexaad ah. Marka dalka xiga ee ku biiri kara midowga Yurub waxay ka iman karaa wadamada isku yiraahdo Balkan. Wadamo badan oo qaaradda Yurub ah ayaa codsi soo dirsaday si ay ugu biiraan midowga Yurub, waxaana ka mid ah dalka Turkiga, dalka North Macedonia, Montenegro, dalka Serbia, dalka Bosnia and Herzegovina, dalka Ukraine iyo Moldova. balse dalalkani weli si buuxda umay dhammaystirin shuruucda lagu biirayo midowga Yurub. 2019kii dalka Turkiga ayaa codsi soo dirsaday si uu ugu biiro midowga Yurub, balse dalka Turkiga weli ma soo buuxinin shuruucda lagu biirayo midowga Yurub. Marka la fiiriyo shuruucda midowga Yurub, waxaa soo buuxiyay dalka Montenegro, waxaana ku xiga dalka Serbia, dalka North Macedonia, dalka Bosnia and Herzegovina, dalka Albania iyo dalka Ukraine iyo Moldova. Ukraine weli waxaa ka socda dagaalo, sidaasna waxay ka micno tahay inuu ku biirin